الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يدين بركاته. سو دواada kuna soo dhawaada channel Kudul Media. Sida ciwaanka ka aragteen, nin Nigerian ah ayaa gabadan Soomaaliyeed iska haystay muddo 5 sano ah ilaa ay 3 cunug u dhashay. Ogaalkeedana joogin wali. Muxuu ku haystay? Madiido ku haystay. Muxuu ku haystay? Sixir ayuu ku haystay. hooyadeeda ayaa dabcan la soo xiriirtay ayadoo dhahaysa gabadheeda muddo inta la eegay iga maqan tahay gurigeeda iyo ma ogola ninka markaan xataa aan arko ama aan maxaan ku dhahay albaabka u tago maxay telefoonka ma haysta asaga woona diidaa inaan balla hadlo markaan arko u tago aan is aragna isaga soo horbaxno oo isoo ceersadaa waxaana aaminsanahay ogahay gabadheeda in sixir lagu haysto waxaan u tagay dawladdan u tagay booliiskan ka dacweeyay waxay u dhahan anaga arrimaha noocaas oo kale ma gareyno maadaama dad isku qancay ay yihiin ayaga haye sheekhu arintaasan doonaa in la iga caawiyo hadda waxaan idhi marka adigaba haddii aan lagu ogolaan guri inaad gasho maxaan ka caawin karnaa annaga maxaan samayn karnaa waxay tiri waxaan doonayaa oo keliya anigaa keenaya sidaan guriga ku geli lahaa oo aan gabadhaas aga soo saari lahaa ama guriga noogu fasixi lahaa anaa keenaya idinka fadlan waa idin baryaaya 5 sano gabadha iga maqan tahay waxaa igu maqaal inay caruur leedahay ma oga ogow 3 cunuga haystaa gabadha hooyada waxay leedahay waxaa igu maqaal oo aan maqlay in xataa ilmay u dhashaan maqlay maxaa yeelay iimaba ogolab inaan eeridaas tago la hawla wala quwwata illa billah ilaaha waxaan ka magangalaynaa cid walbo shar iyo shaydaan ah oo nala damacsan xumaan ayaan ka magangalaynaa cid walbo shar nala damacsan allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka magangalaynaa waxay leedahay waxa igu maqaalo ah oo aan maqlay macnaha waxay ka maqlaysaa dadka eeriyada degan ee Soomaalida ah ayaa waxay arkeen gabadhan caruur jiidaysa oo yar markaas imaamadu waxay ku dhaheen war gabadhaada ilmay wadaa iskool inay geyso ama ka keentaan u maleynayna inay dhashaan u maleynayna caruur ay u haysan ninka hooyadu waxay tiri macquul ma aha nacam muddo 5 sano ah waa sax way dhici kartaa maxaa yeelay xataa ka hore oo iska haysan ninkan intoosa si toos guriga u geysan macnaha 5 sano ay guriga si toos ugu joogtaa laakiin ka hore oo iska haystay oo guriga ama imaata meelaha kale kula kulma ay wax la midka laakiin muddadan 5 sano ah si kaamil ahaan familkeeda oo ka gooyay gurigaasay hay u joogtaa naam waan Nigerian aniga marxaati ka ahaa oo ilaa asaga naftirkiisa inta la fariisanay oo orday ka tagay xataa meesha aan ka tagay ilaahay falligiisa arinta waxay u dhacday sida tan marka hooyadii waxay soo khalkhalisay gabadhii sidaan ku heli lahayd guriyaha dariska ah ee Soomaalida ah ay arintan u sheegtay almuhim ilaahay falligiisa xiliyada uu asaga baxaa loo ogaaday guriga hooyadii way gashay gabadhii u tagtay oo caruur dabcan ay la joogaan war heblaayo maxaa kugu dhacay waxbay uma dhicin caadi macnaha caadi ula sheekaysan waa qof caadi ah oo caadi u sheekaynaya hay caruurtan waa ayo hadda caruurteeda waaye aniga ma taqaan ha hooyadeeda tahay maxaa ii soo wici weysay maxaa teleefankaada maxaa qora iga qaban weysay maxaa kugu dhacay muddo intee naga maqneed ma ogtahay yani way sheekaynaysaa laakiin waxa leedahay aniga noloshan anaa doortay maxay iga rabtaa adiga ninkayga diidan tahay ninkayga nacab tahay wixii la midka waxay tiri waxaan rabaa oo fiirso quraan inaan ku saarnaa rabna hooyo ma ogolaanaysaa waxay tiri maya quraan ma xanuunsan maxaan ogolaanayaa almuhim say ugu celcelinaysay waxay ku qasabtay gabadha inay guriga ka soo wado ay gurigeeda keento hal mar waa soo laabanaysaa adii ilmahaada kaali guriga soo raaca imaado gurigeeda keento allahu akbar ninkii aaway shaqo jira waxba kama oga guriga waa la soo xiray gabadhii way soo wadi guriga keentay almuhim guriga tagnay oo inoogu wacday hooyada xilli waxaan filayaa taqriiban maghribkii ku dhow adiga casar iyo maghrib intuu dhaxeeya ahayd haddii aan tagnay gabadha horta markiiba way isbedeshay maanan saarin waxba quraan waan soo galnay ayadana isbedeshay indhihii waa ka halkaas soo baxeen dagaalamaysa idhaysa waxa iga wadaa maxay yihiin qoladan maxaad iga rabtaan waa kaasa adduunka ay kaga noolaan lahay maba naqaana baana maxaad adduunka noolaanaysa kiis ay noo raactay kiis adiga khaylo ay cirkaas isku dartay ilaa aan ka baqnay dariska inay maqlaan oo booliis lagu waco adiga say u doodaysa kadib ayaan la fariisanay waan fariisinay horta intaan dajinay ayaan fariisinay waxaan isku day inaan la hadalno maxay waxay leeyihiin waxa ka dhaxadlaaya maxaan idinka noolaan laanahay meel walba nooga soo dogasheen haddana inta rabtaa inaad naga saartaan iyo wixii la midka المهم gabadhii wixii ka dhaxalayay ayaan wareysanay quraan ma saarin ogaada cabaar markaan wareysanay hadalay isku celcelinay waxaan aragnay qolo dagaal diyaar u aho doodayo qaylinayo hadee rabe inay adduunka dhan oo dariska nagu soo baxaan quraana bilowna marka
xogaan quraan saarnay muddo aan ku qiyaasi kara taqriiban 10 daqiiqo wixii la mid ah ayaan quraan saarnay waan baxayna sidaasaan nahay inta dabcan beentooda adiga daldaleen dabcan ujeedada waxay tahay in ay intay sheegi karaan sheegeen intaan annagana waraysan karna waraysanay beentooda iyo runtoodaba ayagana way sheegeen kadib ilaahay faldigiisa gabadhii muddo kadib 40 daqiiqo meelahaas oo kale total ahaan markay tahay quraan saaridii iyo waraysiga iyo kulli inta isku jiraan ayaa gabadhii horta way soo naxday ayadii maba ahanba qof kale qoftii haddayna la hadlaysay oo hooyadeedana sidii ka sheegaysay oo haddana doodaysay oo maba ahanba wixii ilaahay ka saaray tabaaraka wa tacaala wallah hay hooyo maxaa inta u joogaa seen ahay inta goormaa imaaday dharkan yaa iskale dharkeeda ayaa banta carruurtan yaa dhalay laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah carruurteeda waxay leedahay maxay yihiin carruurtan hooyo halkee nooga imaadeen dharkan ay wadatay inaan garanayn waxay yihiin katiinad ay wadatay ay intay saan dhaar xijaabkeeda gacanta gelisay faksoosiis maxay tahay waxaa xirsi ay wadato oo u xiran waad yaabaysaa waxaan maqli jiray sixirka qole hebel ay sameeyaan wuu adag yahay oo daran yahay sixirka qole hebel ugu daran waan maqli jiray laakiin qof in miirkiisa sidaa inta loo tagsiiyo oo la qaato la leeyahay asaga dhanba addoon uu yahay ogeen hadda u fiirso intaas ilmay dhalayso ogeen waa arrin la yaab leh nacam waa arrin la yaab leh almuhim gabadhii waxaan isku daynay inaan balwaraysanno xaaladeeda iyo ninkii ay hadda la joogtay iyo maxaan ku dhahay ka dhaxeeyey iyo inaan waraysanno waxay tidhi ninkaasi mar hore anoo isku xanaaqsan ayaa igu dambaysay wallahi waa saas waan arkay tidhi hadda ka hor anoo isdhahaya salaad tuko u fiirso macnaha insaanka ma ogtahay khaasan muslimiinta qurbaha jooga hadda macaasiyar hadduu galo ama uu jidkii ka leexdo iyo iimaankiyaa ku jira macnaha markay noqoto wuu soo laabanaa waxay leedahay marka muddo markaan salaad la'aan aan ahaan ogaaday inaan waddo xun ku socdo ayaa maalin waxaa igu soo dhacday iska tuko malaha waa mar ay jinkii balaayadii ay xoogaa ka baxeen jirkeeda anoo tuko isdhahayay tidhi ayaa waxaan arkayaa ninkaanu cunto afka ii gelinaya marka halkaas maray soo naaxday ay ogeed asoo isku dhacsanay ogeed markaasaa u xigtay oo cuntada siinaayay kadib waxay leedahay waxba kama ogi nolosha ay ku jirtay waad yaabaysaa hadal iyo talo iyo maxaan ku dhahay warbixin kadib gabadhii waan soo baxnay annagoo la socona naftirkeeda gurigeedaa nimid annagaa guriga galnay wallah guri ibni aadan xataa uu ku noolaan karo caadiyan maba ahanba ilma iska daayay ilmaha waa yareedihiin saddexdaba almuhim gurigii marka aan saa u galnay urka ha noqdo bahalo laguma tagaayo adiga dhan oo matag oo kale aad dareemaysa markaasaa u gasho waxyaalaha shimbiro oo maxaan ku dhahaye la dilay iska dhe taqriiban baalashooda oo tiro badan ayaa derbiga ku sharaxan dhinacana ku sharaxan adigoo guriga waxaad is leedahay gurigii sixroolayaashoo dhan ay ku jamcayeen inay tahay oo ay dabcan kulanka ku yeelanaa inuu yahay ayaad is leedahay gurigii waan galnay dhinacan haddaad fiiriso adduun qashin iyo xayaanaad iyo maxaan ku dhahay makhaar iyo balaayaa buuxa halkaas sidaas oo kale waxaan isoo gurigaada mahanad ku noolay qoftii hadday soo kacday iskama warqabto ma oga laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah dhambaalkan iyo qisadan guud ahaan waxay ku socotaa soomaalida gaar ahaan waxay ku socotaa dadka ajnabiga la saaxiba wiil ahow oo gabar ajnabi la saaxib ama gaar ahaan gabar ahow oo ajnabi la saaxib imisaa su'aalna soo weydiiyaa imisaa aragnaa sheekhow nin iiraan ahaan la socdaa sheekhow nin marookaan ahaan la socdaa sheekhow nin hindi ahaan la socdaa sheekhow saasoo igu yidhi macnaha dadkaan markaad isku dhacdaan dadka qaarkooda oo ajnabiga noocaan ah qaarkooda markaad isku dhacdaan waxaa dhacaysa waa maxay inay adiga dhan saa adduunkaaga saaraan familkaada kaa gooyaan 5 sane hooyadan sheegaysaa gabadhan miirkeeda maba jooginba ilmaheeday la yaaban tahay aynan ogeen oo ay macnaha nolol ay ku jirtay iska haysto qofaaba ay u xirxirneed una fiirso nolosheeda dhan sida loo qaatay laa xawla walaa quwata illa billah waa wax arrin weyn waa arrin culus oo weyn iska ilaali rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam markuu dhahayo falyandur ahadukum man yukhaalil war ha iska eego ha iska fiiriyo axadkiina qofkiina ciduu la saaxibayo waxaa ku jirta xikmad aad u sarreysa xikmad weyn cidaad taqaanid oo ugu yaraan wax aad ka qaadan kartid ama aad la doodi kartid haddaad bal la saaxibaysa la saaxib macna maxaan ula jeedaa la saaxiiboo nin ka dhiga ulama jeedi saa ulama jeedi waxaan ula jeedaa cidaad taqaano haddii aad guur iyo waxa la mid aad ka sheekaysanaysaan qof aad taqaano oo ama aad isku tihiin macnaha Soomaali iyo wixii la mid ka ahaado
gabadha un ma ahan nacam gabadha un ma ahan gabar kalaa jirta qisadeeda hadda haddaan bilaabo way dheeraanaysaa oo nin hindi ah sidaa uu u haystay nin hindi ah saa u haystay bal gurigeeda gabadhaasi marka aan tagnay oo isku dayay ninka hindida ah inuu ummaddii hindida aheeda erida degna intuu nagu wacdo naceersado gabar Soomaaliyeed gurigiisa ku jirta muddo uu iska haystaa u fiirso oo markayna aragtay halkaas kale ibadbaadiya anagana aan waxba u tari karin nagaari halkaa la taagay igoo tiro badan u fiirso macnaha ogow marka qaarkiisa ha isdhihin waddamo sharci lahaa joogay kada ha isdhihin waxaa dhacda waa maxay waxaa dhacda qofta in la sixiro booliiska markay imaadaan ay dhahdo nolosheeda caadiya ku jirtaa xataa maxay gabadhaasi Soomaaliyeed ninka hindida haystay familkeeda waxay sheegayaan maxay familkeeda waxay leeyihiin mar alla markaan u tagno oo booliiskan ka dhaadhicina inay sixiran tahay wixii la midka booliiskii markaan gurigii tagno gabadhii waa normal waxay leedahay familkii haliga qabto nolosheeda dhibaayaan nolosheeda macnaha rabaa inay iga qaataan ay leedahay waa caadi markaasi annaga u tagnay ilaahay amarkiis maxaa dhacday qadar ah inay dhahaysay ibadbaadiya annaga inagu dhahaysay marka waxaad ogaanaysaa ciddaad la saaxiibaysa iska ilaali iska fiiri ma cid kuu munaasib aha mise ma ahan waa inaad ogaataa المهم gabadhan qisada idin dhameeyo gabadha Soomaaliyeed ninka Nigeria ka sixray gabadha Soomaaliyeed intay yaabtay ilmaheeda xataa la yaabtay oo maadaama hooyadii ay u sheegtay ku tiri ilmahaada waayo saan waa iga ayaa marka armaajooyinkii iyo adduunkii gurigii ay gashay ana gurigan joognaa ugu ninkii wuu soo socdaa wuu imaan doonaa waan is arki doonaa waan ordi doonaa waxa dhacday armaajooyinkii ku carartay intay ku carartay warqaday heshay waxay heshay warqado dhalashay heshay waaba ilmaheedii isbitaalkaasay ku dhashay maalintaasay dhashay halkaasay ku dhashay iyo wixii la midka ilmaheeda ayada dhashay mana ogeen inay dhalaysa ilmahan intaasi qalbigiisa asaa loo haystay gurigana saan idin sheegay wallah meel aad lug saarto iyo gacan darbi aad saa u saarato malahan ilaa iyo macnaha baalasha shimbiraha iyo doorooyinka iyo digaaga yani ayaa darbiga sidaan lagu sharaxay dhulka waxa yaala maqaar meesha aad ku soconayso lugaha dhigaysa ma ahane geesahoo dhan roog waxaa looga dhigay maqaar uraay weli bahad cajiib uraaya ma aqaan wuxuu yahay macna nolosheeda dhan qofti saa loo qatay oo fiirsada saa loo qatay المهم ayadoo gabadhii sida u mashquulsan oo naxsan xanaaqsan ilaahayna qalbigeeda alxamdulillah suucidi wixii ilaahay ka saaray oo annaga guri aan dhex joogno oo dabcan ayada ay raadinaysa baasaboorkiisii wixiisii iyo kada iyo xanaaqsan booliisna rabta inay wacdo ay horta ninkii soo galay ninkii oo shaqo ka yimid oo caadi siduu dabcan gurigu u imaan jiray oo u heesta ayaa gurigii soo galay annaga guriga hadda joogno ogaada mar alla marka uu soo galay dhinacaas gudahaan ku jirnay oo dhinaca fadhiga cabbaar marka inuu soo socdo albaabka soo xiraa annagoo noogu yimid marka who are you what are you doing here biyatihiin maxaa kan ka samaynaysaan iyo wixii la midka almuhim ninkii hooyadii halkaasii joogta wuu yaqaanaa gabadha uu iska haysto halkaa taagan oo ilmahan u dhashay oo xanaaqsan oo isbedesho noocii uu yaqaana aanan ahayna halkaasii taagan tahay ayadii asaga dood ha bilaabaan ayadii asaga dood iyo dagaal meesha ka bilaabaan ayada taleefanka gacanta ku haysta xilligaas booliiskii dabcan saa u waciisay ay rabtay inay wacdo yani almuhim annagaa la hadalnay waxaan idhi bal noo waran qisada nooga waran gabadha aragnay bal adin noo waran gabadha waxay taagan tahay yaa kuwa ogaad inaad sidaa igu samaysiin nolosheedaad baabi'isay yaa ku siiyey inaad nolosheeda aad sidaa ugu ciyaarto kadaa igu samaysay intaa igu samaysay yaa ilmahan iga dhal ku dhahay sidaas dooday ku jirta almuhim ninka hadalkii intay waday hooyadaa waxay afkeeda ka soo tuurtay hadda booliisaan wacaynaa ninkii horta fakaday annagoo arkayna ayuu alba ka cararay dabcan dokumentadiisi warqadihiisi guriga asaa ku qoran dabcan saa uma fakan karo dibadaan la joogaa dabcan oo afrikadii lagu dhumanayo ma ahan waa la helayaa siday noqotaba almuhim qisadan waxay cibro qaadasho u tahay qof walboo doonaya ajnabi inuu la socdo ka dhigto maxaan ku dhahay inuu aamino iyo wixii la midka ah maalintan isku dhacdaan gabadhaasi waxay leedahay waxaa meel igu dambaysay anii asoo isu xanaaqsan oo isku dhacnay oo kala harnay hadda fiirso kala harnay oo xiriirkii isu jarnay ayaa igu dambaysay kadibna maalintaas ay sheegaysay rabtay inay salaad tukato asoo cunto afka u gelgelinayo ayay ku soo naxday haddana suuxintii uu ku celiyey wuu suuxiyey haddana dabcan sixirkii uu ku celiyey ilaahay hana badbaadsho tabaaraka watacala meel walbaan joogno laakiin waxaan ku leeyahay aad u taxadar war is ilaali nacam is ilaali ilaahayna tabaaraka watacala nagama dhigo kuwa noocaas oo kale ah sixra ama maxaan ku xumaan ku sameeya ilaahay shartoodan ka maangalayna subxaanahu wa tacaala ilaahay idin barakeeyo la qaybsada videoga dad badan maxaa yeelay dada qaar laga yaabay inay arrintan ku jiraan
gabadhii hindidan kuu sheegay insha Allah ta'ala qisada marka aan ka warrami doono biidin Allah ta'ala tan waxa laga yaabaa dad kale noocaas oo kale inay jiraan waxa laga yaabaa dad inay ku fakarayaan inay jiraan inay guursadaan ama la socdaan iyo wixii la midka ah si dambaalkan uu u gaaro dad tiro badan ayaga ka mid ah nacam dada naga maqan guriga lagu heystaa aanan ka warqabin barnaamijkan qaybi oo dadkaasi gaarsii laga yaabo inuu guri ugu tagay ilaaha ku barakeeyo wajazaakumullahu ta'ala khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر